بسم الله الرحمن الرحيم. جمعة وناكسن وأفر يتبنك بشا أغسطس سنتك لبكن لباتني اللح أو كوباغن كودة بشا الربيع الأول سنتك كن أفر بغلا فرتني يسيديد تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله يبرامجكي حولشada wararka qodobada saaki barnaamijka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah iyadoo xiisada bariga dhexe weli cirka ay ku shareeran tahay ayaa waxaa lagu soo waramayaa habeennimadii xalay laba markab oo imaaraadka carabta laga leeyahay in lagu weeraray marinka Hormuz. taliyaha ciidamada badda Iiraan oo si cad u sheegaya in marinkaasi uu xiran yahay tani waxay ka duwan tahay hadallada ka soo yeeraya Donald Trump. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka oo Iiraaniyiinta ku eedeeyay inaysan fulin heshiiska ay galaan. Xuutiyiinta oo digniintii ugu cuslayd u jeediyey Sacuudiga. duqii magaalo ku taal dalka Afghanistan oo lagu dilay qarax baabuur. cudurka Ebola oo ku sii fidaya gobolkii lixaad oo ka tirsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo dhaca intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka. soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno. haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. saaka waxaynu ku hormaraynaa colaadda waddanka Yemen iyadoo dagaallo culus ay socdaan duqeymo kala duwanna la isweydaarsanayo ayaa digniintii ugu cuslayd waxay ka soo yeertay xogaga Xuutiyiinta ee dalkaasi. haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee amuurtan la xiriira. xogaga Ansaarullah ee loo yaqaano Xuutiyiinta Yemen ayaa digniin culus u diray Sacuudiga iyagoo sheegay in dibudhac kasta oo ku yimaada geedi socodka nabadda uu horseedi karo sarokac cusub oo ku timaada colaadda dalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Xuutiyiinta ee Sanca ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in sida hadalka ay u tiri faragelinta taban ee Riyaad ay ku hayso arrimaha Yemen ay tahay mid waqtigeedii dhammaaday. wasaaraddu waxay uga digtay hoggaanka Sacuudiga in uu sii jiitamo fulinta qodobada la xiriira nabadda iyadoo sheegtay in qarashka nabadda maanta uu aad uga yar yahay kan mustaqbalka. bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada Xuutiyiintu ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan tilaabo kasta oo military isla markaasna ay sii wadi doonaan bartilmaameedsiga dhaqdhaqaaqyada military ee Sacuudiga. Xuutiyiintu waxay ku tilmaameen howlgalladooda iyo xannibaadaha ay sheegeen inay saarayaan maraakiibta Sacuudiga ee badda cas kuwa ku salaysan mabda'a go'doomin looga jawaabo xaalad kicinna looga jawaabo xaalad kicin. dhanka kale Maxamed al-Bukhayti oo ka tirsan xafiiska siyaasadda Xuutiyiinta ayaa ku nuuxnuuxsaday in haddii Sacuudi Carabiya weerar ballaaran ay ku qaado Yemen kooxdu ay bartilmaameedsan karto goobaha shidaalka, kaabayaasha korontada, xarumaha biyaha lagu macaaneeyo iyo garoomada dayuuradaha. al-Bukhayti ayaa sidoo kale ku eedeeyay Riyaad inay qarinayso khasaaraha ka dhashay weerarada inkastoo uusan soo bandhigin caddaymo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashadiisa. waxa uu sheegay in Xuutiyiintu ay diyaar u yihiin inay isku mar ka dagaalamaan dhowr jiho balse ay door bidayaan inaan dagaal cusub ka dhex marin waddankaasi ama ku dhex marin dhinacyada reer Yemen. wararkii ugu dambeeyey ee amuurahani telefishinka Sabah ayaa waxa uu sheegay in Xuutiyiintu laba gantaal ay ku weerareen marinka Baabilmadab ee dhanka galbeed ee waddanka. lama soo sheegin goobta bartilmaameedka ahayd. waxay ku soo kordhaa arrimahani intaynu barnaamijka ku jirno ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo. iminkana Afghanistan halkaasi oo lagu soo waramayo in
qarax lagu dilay duqi magaalada Faizabad ee dhacda waqooyiga bari ee waddanka Afghanistan. Xabiibur Raxmaan Mansuur ayaa lagu dilay qarax lala beegsaday gaarigiisa sida ay sheegeen ilo caafimaad iyo kuwa maxalli ah. Kalkaaliye caafimaad oo ka tirsan cisbitaalka gobolka ayaa wakaaladda wararka ee AFP ee Faransiiska laga leeyahay waxa uu sheegay in qarax lagu weeraray gaariga duqa magaalada, halka shaqaale ka tirsan dowladda hoose uu xaqiijiyey in Mansuur lagu dilay meel u dhow xarunta maamulka degmada. Dilkan ayaa imaanaya toddobaadii kadib markii Zabibullah Amiri, madaxii waaxda warfaafinta iyo dhaqanka ee gobolka Badakhshan, la toogtay 28kii Juulaay xilli uu ku sii jeeday magaalada Faizabad. weerarkaasi waxaa sheegatay kooxda Daesh. Afghanistan ayaa tan iyo markii Taliban ay xukunka la wareegtay 2021kii waxay ku sugnayd xasilooni amni oo ka badan xilliyadii hore, inkastoo weerar goosgoos ah weli ay ka dhacayaan waddanka Afghanistan. warkaasna inta aynu kaga talowno markan xagga Afrika aynu u leexano, gaar ahaan dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. cudurka Ebola ayaa ku fiday gobolkii lixaad ee ka tirsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo kadib markii bukaan u safray deegaanka la yiraahdo Basi-Uyale isagoo ka yimid deegaanka Huut-Uyale ee cudurka horey uga jiray, sida Khamiistii ay shaacisay hay-adda Africa CDC ee xakamaynta cudurrada faafa. bukaanka ayaa ku dhintay magaalada Buta kadib markii uu yeeshay calaamado dhiigbax. kiisaska la xaqiijiyey ee cudurka Ebola ayaa hadda dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay gaareen 4449 qof, waxaana cudurka u dhintay 2061 qof tan iyo markii cudurka uu dilaacay bishii May ee sanadkan. madaxa hay-adda Africa CDC Jean Kaseya ayaa sheegay in cudurka uusan weli xakamaysnayn, isagoo intaa ku daray in ka badan 63% dhimashadu ay ka dhacday deegaanada dadka rayidka ay degan yihiin ee tuulooyinka. WHO ayaa Arbacadii ka digtay in xawaaraha faafitaanka cudurka Ebola uu ka dhigi karo dilaacan mid ka gudba masiibadii galbeedka Afrika ee 2014 ilaa 2016. deegaanka Ituri ayaa weli xudun u ah faafitaanka cudurka Ebola. وهاجاك wararkaasna inta aynu kaga gudubno waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee xiisadaha colaadeed ee gobolka bariga dhexe. maraakiib imaaraadka carabta uu leeyahay oo xalay lagu weeraray Hormuz, Iiraan oo war culus oo ka soo yeeray, iyo weliba warar kale. intaan u gudbin wararkaasi ogeysiis yar aan bixiyo. qaybta kale ee telefishinka R waxaynu soo gelinay goordhowito barnaamijkii Sooyaal. barnaamijkan waa barnaamij cusub oo subaxnimo kasta oo Jimco RTV aad kala socotaan. barnaamijkan toddobaadkan waxaan soo gelinay sheeko ku saabsan taariikhda iyo asalka Soomaalida. horta Soomaalidu xaggee bay ka soo jeedaa? raadraac iyo hidisidayaasha DNA-ga macluumaad lagu ogaaday ayaa barnaamijkaasi aad ka heli kartaan markii aad dhamaysato barnaamijyada HBN. kadibna waxaad u wareegi kartaa qaybta RTV, halkaasi oo barnaamijyo kala duwan ay ku jiraan oo barnaamijkaasi oo ugu dambeeyo. hagaag markan aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee xiisadaha gobolka ee bariga dhexe. intaan u gudbin wararkaas iyo qodobo kale aynu ku hakanno qadar xayisiina. Qari Online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka Quraanka Kariimka, higaada iyo asaasiyaadka diinta Islaamka, iyadoo ardaygu uu helayo hal wiig oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta, taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin. macallimiintu waa khuburo, macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrad ah. waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay, iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo Qari Online. haddaba si aad uga faa'iidaysato casharrada Qari Online, la xiriir ciwaanada iyo telefoonnada shaashadda kaaga muuqda. Imara Luxury Homes, daldalaal layskama raacee, kuwani waa dhismayaasha Imara ee dhaxalgalka. dhismayaasha Imara waxay ka kooban yihiin 2 qol, 3 qol, 4 qol
iyo fadhiyadooda guryo dublekis ah iyo kuwa penthouse ah qolka shaqaaluhuna meesha kama maqna iyo wax kasta oo ay xaafad gaar ah u baahnay labada dhisme ay shirkadu hadda gacanta ku hayso dhismaha koowaad waxaa laga dhisayaa xaafadda Parkland City Park Drive 6th Avenue waxaana uu ku dhow yahay isbitaalka Aga Khan dhismaha labaadna waxa uu ku yaalaa Kilimani wadada madaxtooyada ama State House-ka ee Dunsbury Road wixii faahfaahin ah oo inta dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal jimca mubaarak ayaan idin leenahay meel walba aad joogtaan waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan jimcaha toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube, Facebook, Twitter ama X iyo Telegram warbixino qoraal ah warar faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka ayaynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa hagaag haatan waxaynu jaleecaynaa wararka la xiriira xiisadaha colaadeed ee Iiraan iyo Mareykanka xagga Iiraan aynu eegno halkaasi oo war weyn oo ka soo yeeray taliye sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga taliyaha ciidamada badda ee qaybta ka ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan Admiral Ali Azma'i ayaa sheegay in marin biyoodka Hormuz uu xiran yahay isla markaasna ciidamada Iiraan ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaq kasta oo halkaasi ka socda Azma'i ayaa sheegay in aysan jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo ka socda marin biyoodka istiraatiijiga oo ka qarsoomi kara ciidamada Iiraan waxa uu ku nuuxnuuxsaday in marinka Hormuz uu yahay mid ciidamada Iiraan ay si buuxda u maamulayaan marinkan ayaa muhiim u ah ganacsiga tamarta caalamka iyadoo qayb weyn uu ka yahay socodka shidaalka iyo gaaska dunida laysaga dhoofiyo dhanka Mareykanka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in qalalaasaha hadda jira uu ku dhammaan doono iyadoo la xoojinayo mowqifka Mareykanka lagana hortegayo in Iiraan ay hesho hubka nuclearka waa sida hadalka uu u dhigay Vance ayaa sheegay in dib u soo celinta xasiloonida marinka Hormuz ay xaqiijin doonto xasiloonida qiimaha shidaalka iyo gaaska ee shicibka Mareykanka dhibaatadu waxay tahay in Iiraaniyiintu ay sameeyaan ballanqaadyo aysan fulin heshiis ayay gelayaan dabadeedna ma hoggaansamayaan ayuu ku andacooday madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance waxa uu sheegay in xaaladda Iiraan ay tahay mid kacsan oo isbedel badan balse Mareykanku uu haysto qalab Iiraan uu ku qasbi karo inay qaado tillaabooyin wax ku ool ah waa sida hadalku uu yiri Vance ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku diiradda saarayo xaaladda tamarta si loo xaqiijiyo in shacabka Mareykanku ay awoodi karaan qiimaha shidaalka iyo gaaska waxa intaasi uu ku daray in Mareykanka madaxweynahooda Trump uu haysto qalab dhanka diblomaasiyadda ah mid military iyo mid dhaqaale oo ballaaran oo cadaadis uu ku saari karo Iiraan Vance ayaa waxa uu sheegay in hadafkooda koowaad uu yahay in dhaqaalaha caalamku uu sii helo tamarta uu u baahan yahay halka hadafka labaadna uu yahay in Iiraan weligeed aysan helin hub nuclear war kale oo xiisadan colaadeed la xiriira wakaaladda wararka